dhacdadii Palomares 17 January 1960 xilligaa oo ahayd markii uu socday dagaalkii qabowga u dhexeeyay dalkii Midowga Soviet iyo Mareykanka ayaa waxaa labada dawladood isku dayeen inay sameystaan wax walba oo suuro gelin kara inay midba midka kale kaga guuleysto dagaal. ayaa dawladda Mareykanka waxay sameysatay gantaalkii loo oran jiray B-52G gantaalkaas oo xambaarsanaa 4 qunbuleed hydrogen ah qaybna ka ahaa awoodda Mareykanka ee nukliyeerka loogana jawaabayay weer walba oo ka yimaada dhinaca Soviet-ka ayaa waxaa laga soo qaaday xeebihii bare ee dalkaasi Mareykanka iyada oo loo sii waday xuduudii Midowga Soviet u lahaa dalalka Yurub ayaa waxa ay u baahatay shidaal tiro 4 jeer iyada oo maraysa dalkaasi Spain. diyaaradan ayaa waxa ay ka qaadanaysay shidaalka diyaaradii kale ee K-150 ee u lahaa Mareykanku. diyaaradaas oo 60 malaayiin shidaal ah ayaa nasiib darro waxaa isku dhacay labada diyaaradood iyaga oo dul maray hawada dalkaasi Spain meel kor ka jirta 10 kiiloomitir halkaas oo ay isku dhaceen labadii diyaaradood waxaana halkaas ku burburtay diyaaradii K-150 ee 60 malaayiin shidaalka iyadoo ay ku dhinteen dhammaan shaqaalihii saarnaa halka diyaaradii kale ee 8 gantaalkuna ayna burburtay. laakiin nasiib wanaag iyo ficilkiisa waxaa noqotay markii la arkay gantaaladii ama 4 gantaal oo aanu midkoodna burburin midkoodna qarxin oo haddii ay qarxi lahaayeen xuduudaba ay ka bixiyay dalka Spain maanta loo yaqaan. waqtigaas oo 3 ka mid ah 4 gantaal laga soo helay jasiiradda yar ee loo yaqaano Palomares looguna magac daray dhacdadan halka kii afraadna 2 bilood iyo bar kadib laga soo helay dalka xeebaha Mediterranean.